xafladan oo ay soo qabaqaabiyeen ardayda wax ka barata jaamacadda Masar iyo raabidada ka qalinjibiyaasha jaamacadda Al-Azhar ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxweynihii hore dowladda Puntland General Adam Muuse Xirsi, gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiquraan Maxamed Aadan, gudoomiyaha degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise Hogaamale Laroor, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Puntland, nabadoonnada gobolka Karkaar, maamulayaasha dugsiyada sare, madax ka socotay jaamacadda Bariga Afrika, macallimiinta wax ka dhiga macadka Masaarida Qardho, dhalinyarada magaalada Qardho, madaxda ururada haweenka degmada Qardho, madaxda hay'adaha maxalliga iyo marti sharaf kale oo aad u badan. intii ay socotay xafladan ayaa abaalmarino kala duwan la siiyay madaxda gobolka kan degmada, mas'uuliyiinta ururada, xildhibaanada, ardayda kaalmaha ka gashay jaamacadda Bariga Afrika iyo dugsiyada sare ee Qardho iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Balaag oo kamid ah dhalinyarada inta badan ka shaqeysa horumarka. Yuusuf Cismaan Xaaji Mire oo kamid ah ardayda ka timid dalka Masar ayaa ugu horeyntii ka hadlay xafladani. xafladatan waxay ku saabsan tahay iyo meesha iyo ahmiyadda aan uga jeedno oo aan darteed xafladatan u qabanay. ahmiyadda koowaad ee aan u qabanay xafladatan ayaa waxay tahay in aan dhiirigelino ardayga secondary-ga ah. ahmiyadda labaad ayaa waxay tahay isdhexgalka, inaan ka shaqeyno isdhexgalka ardayda reer Puntland. ahmiyadda saddexaad ayaa waxay tahay in aan dadka ku abuurno wadaniyad. Maxamed Caawad oo kamid ah ururka raabidada ka qalinjibiyaasha jaamacadda Al-Azhar ayaa ka hadlay waxyaabaha ay qabtaan ururkaasi. ururkan ma aha ururada badan ee Soomaaliya ka furan ama gobolladeeda. ururkan waa urur loo dhisay marka hore inay dhiirigeliyaan ardayda dhammaysata waxbarashada heerka dugsiyada sare si ay u helaan jaamacado. labo, ururku wuxuu bixiyaa dowlad ama workshopyo lagula talinayo ardayda dhammaysta waxbarashada dugsi sare si ay u doortaan kulliyado munaasabad. saddex, ururku wuxuu ku dhiirigeliyaa gabdhaha inay dhammaystaan waxbarashadooda. madaxweynihii hore dowladda Puntland General Adam Muuse Xirsi ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ayna isku koobin kaliya magaalada Muqdisho ayna siiso xaq ay leedahay dowladda Puntland. dowladda federaalkana waxaa leeyahay iyagan isku koobin xamar kaliya, xaq xuquuqda ay leedahay Puntland waa inay siisaa. annagu federaalka waa nahay, waa rabnaa. maxaa jira, waxaan rabnaa midnimada Soomaaliya inay midowdo oo sideedii ay ku soo noqoto ayaan rabnaa. waxaan ka mid ahaa raggii aasaasay markii federaalismadan la sameynayay oo laga shaqaynayay. waxaan la joogay Cabdullaahi Yuusuf iyo Geedi, dowladdii u horreysay iyo guddiyadeedii baan ku jiray oo in federaalka la sameeyo. federaalkuna waa dan baa noogu jirta. waa qabaa dowladdu Puntland wax badan bay ka qabatay in federaalku uu socdo, marka wixii iskhilaafana in laga tago. laakiin Puntland waxay ka federaalka waa ku dadaalaysaa, federaalkana waxaan ka rabnaa wax iyagii. waana mahadsantiin. gudoomiyaha degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise Hogaamale Laroor ayaa ammaanay cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomida xafladani. runtii waxay noo tahay sharaf inaan ka soo qayb galno xafladan munaasabadan qiimaha badan leh, quruxda badan leh ee ay noo soo aabuleen dhallinyaradii Masar, aqoon-yahanadeenii, mas-uuliyiintii beritoole iyo kuwa maantaba. Cabdiladiif Xuseen Cali oo kamid ah mas'uuliyiinta dugsiga Al-Azhar ayaa sidoo kale ka hadlay xiliyadii la aasaasay macadka Al-Azhar Qardho. waxaan maaragtay hayaa 86 inuu iskoolkaan looga furmay degmada Qardho iyadoo ay dadaal badan muujiyeen runaantii shakhsiyaad siyaasiyiin ee xilligaas maaragtay dowladda Soomaaliya aad maaragtay muhiim ugu ahaa. ururka ka qalinjibiyaasha jaamacadda Al-Azhar ayaa tan iyo markii si rasmi ah xafiiskiisa loogu furay magaalada Qardho waxa ay tababaro iyo kulamo kala duwan waxa ay ku qabteen magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxayna waxbarasho lacag la'aan u fidiyeen boqolaal haween oo kamid ah haweenka ku nool magaalada Qardho. waxayna qabteen tartamo kubadda cagta ah, tababaro kala duwan oo lagu dhisayo dhalinyarada, muxaadarooyin diini ah. waxayna sheegeen in mas'uuliyiinta raabidada in qorshaha ay ugu jirto sidii wax loogu bedeli lahaa heerka waxbarashada dhalinyarada Puntland. Cabdiraxmaan Maxamed Cali, Somsa TV, Qardho.